horta ma waalantiin haddaan iskoolka imiday borsadeed xataa inay qoyintahay ma ujeedaan naftii alla lahayd baa ii keenteen soo ma ogdiin inaan dana kala leeyahay commentigoo dhan aaway ku aaway qaybtii kale aaway qaybtii kale danaan leeyahay 3 video baan hal maalin ii soo geliyay c'est bon okay waan ogaynaa sheekada sii rabtaan oo video warkaygu ina cajabiyay oo rabtaan wax badan sii ogaad laakiin sidaas ma ahan warkiinoo dhan waa qaybtii kale aaway ku aaway waa daaday kii kale cid warkii aan sheegayay oo dhan comment ka bixisay ma jirto wax yar calmez-vous neefsada inta naarada naga keentay qoshi almuhim sheekada inii sii waday sheekadu waxay noogu ekeyd ayadoo askartuna qabatay soo maaha oo dadka qaarkoodna isiriyo bas khalaas markan hadii ay qabtaan wadankii maskiga laabanaya tahlib dambaba mubarrabana waxaas dhan arkay deelkan la iga celiyay leh asxaab kale waxa jirtay la soo xidhiidho waqtigii la socday oo qaybo aan soo ilaawin ka soo talaabsaday ii sheegtay gadaal iga sheegtay marka gadaal yar baan celinay intaan saxaraa ku jirnay cuntadii iska dhameynay xaaladdu nagu xumay waxaan la saarnayd gabar Soomaaliyeed oo uur lahayd iyo gabar kale uur lahayd oo xabashi gabadha Soomaaliyeed alxamdulillah way fiicnayd waxba kuma laakiin xabashiyada buu ilmihii ka soo daatay oo anagu gaariga saaran oo rafaadsan oo haraadkii iyo baabi iyo waxaas dhan hayb ilmana ka soo yaacay waxa laakiin yaa u joojinayaaba cid bamayada cid eegaysa saan wasi talaabsan noogu soo talaabsanay qof walba tahaysataa ka darnay annaga qaabkan way keenigama sheekeyn karaba rafaadka xanuunka dhibaatada haraadka labadaas intayna cadaadeen ayaan waxa u eekayn dad qabuuri ka soo baxay inta xanoo si dheereed siigada dhaska qofka wajigiisa lama arkin asaga dhan uu cadaa marka qaar xataa ismaanaan garanaynin ma hebel ba baan isdhahaynin okay haddana soo celiya askartii markii ayna qabatay bas khalaas anaga dhan iyo jabnay isnidi saasufi stop qaarnay isleedeen wadanka ku laab oo nimankiina wadayna la xidhay laakiin qabashadiina la qabtay hal mid bay ku fi askartii cuntayna siisay biyayna siisay alxamdulillah okay war xataa aljazeera timiday markii la arkay gabadhii inuu cunugu ka soo daadanayo helicopter baa u timiday helicopter baa gabadhii lagu qaaday iyo wiil kale oo gacanta go'day oo unan garin Afrikaan ahaa anaga marka aljazeera oo warwareysatay warbana laga qaaday halkan u soconna halkan ka nimidnay maxay kii kale pro like meelahaas kale yaa rabay inuu ka soo muuqdo intii TV-ga ku faraxsanayd ma la wareystay iyo inta afka caadiga taqaanay carabiga iyo ingiliishka iyo meelaha afafka la fahmayo bas khalaas askartii hal maalin bay saxara nagu sii haysay dib ay askartii noo soo celisay 3 cishan soo soconay 3 dib noogu celiyeen waan soconay magaalo Dungule leeyahay Suudaan ku taalo baan la geeyay magaaladii san isku lahayn hadda ku iniri agteeda nabad ku tihiin wala iska sii deynayaayo ma aragtay waraaqadayna siinaa wadanka ku sii joogtaan baa maxkamadna la saarayba oo anagu yaan dilay anagu maxaan sameeynay anagu waxaan iska nahay dad wada iska marayay Suudaan idin kartiga niid soo tahriibay baa anagu wadada man sii maraynay maxaan nagu haysataan wadna qabateen Soomaaliya fasaxa waxaan ugu leeyahay no wadanka bila sharci baad ku soo gasheen wadankana bila sharci baad rabtaa inaad ka baxdaan xeerka wadanku leeyaad maraysa oo markaana maxkamadda la saaray oo in xukumaya hadna xukuntaan waxaan sameeynay anagu inta waxaan islahayn haday ugu badato safaaradiina leeyniye inay nigu yaaraya bas khalaas qof walba wadankiisa lagu celinaya sallallahu mubaarak raf'at jalsa saas ma baahayn ba waxa la yiri bilbil baa laynagu xukumaya oo wixii 18 jirka yarna safaarada lagu yeeraya safaaradaas wadanku geeyna dhamaan 18 jirka weyn tahay sharcigaad maraysa war heed sharciga maray muxuu yahay maxaan sameeyay anagoo yaaban oo isle maxaan dhacay saas ku eeg bay barrun maxkamadda noo geeyeenba qaadiga kiiska soo jaray $100 baa nagu xukumaya oo Suudaan ka million wuxuu yiri million baa laynagu xukumaya dinar maxay hayday amba bilbil baad xirnaanaysaan million horta markaa maqalay haamada aan go'day ilaa million ku waa $100 oo Suudaaniya markii baan neefsan alxamdulillah lambarka baan ka naxay ina markaa weydiinay ahayd haddaan bilbil xirnaano amba million ka rabtid ku siino million ka wadna ay xanuunayay $100 oo niga dheh $100 dam bixna yani maxaad nagu sameeynaysan oo ma anagoo bil xirnayno million ka boqolka jeedina bixinay bad xabsina geynayso iska yiri bas khalaas ma qof ba intuu $100 bixiyo haddana xabsi kala galay waa ma yaday xabsi dhaamaha iskaga jir xabsigaaga maxay hayday xabsiga kalena aad marka wixii $100 iska bixiyay xabsiga kala loo gudbiyay wixii kala bixin waayna xabsiga iska joogay xabsi waa xabsi munday marka waxaan ku jiray dadkii aanan bixinin ay xabsiga iskaga sii jiray dadkii bixiyeen hore la qaaday khartoum xabsi ku yaala la geeyay no horta wiilasha dhan mayna bixinin ba wiilasha Soomaalida ani horta Soomaaliin baa ii tirsanay dadka kale maxay iga
wiilash Soomaalida dhan horta lacag may bixinin xabsigii iska joogeen gabdhaha dhan lacag intay bixsadeen bay xabsigii kala aadeen aniga macaada aniga bes baa hadhay aniga bes baa Soomaali ka hadhay xabsiga kaga hadhay marka wiilala isku fiicnaan xabsiga ku jiray bay igu yirina ma waalan tahay xabsiga $100 u bixinaysa xabsi waa xabsi weyn iska joog markaan waan iska joogay gabdhii kale laakiin way bixeen waan ka daba tagnay bishii markay noo dhamaatay bishii way noo dhamaatay u baan leeyahay xabsiga inigama sheekeyn karaba bishii way noo dhamaatay bishii say noogu dhamaatay de xabsigaas cunto caadi lagama yaqaanaba waa digir cadas iyo maxay ahayday cunto suudaani kii ugu xumaa xabsiga markaan ka baxnay midka kale noo gudbiyay waxa ugu tagnay dadkii naga baxay dadka kula tahriibay wallahi alcadiim walaalaha iska daayay hooyada xataa way kaaga dhawiyeen bad isdhigi karta yacni dadkii bil baan kala maqnayn oh my god waxa u maleynayay inaan 8 sano inaan kala maqnayn isku dul baroornay alla waxaan nahay dad saxaro soo maray oo maalin iyo habeen is arkayay waxaan u maleynayay dad hooyo aabana wada dhaleen waa naga fiiq mar dambe ma kala tagayno isla dhimay dadkii markaan waxa ugu tagnay xabsigii la qabsaday waxay noo sheegeen inuu kii kale ka fiican yahay oo saasoo xaaladda halkan iska yara fiican tahay dukaan jiraan oo lacag la dalban karo oo dhar la iibsan karo maxay la iibsan karo xabsiga restaurant baaba ka furanba xabsigu marka xabsi caadi ma aha waa meel migration waxa la yiraahdaa wali almiimo xabsi safaaradaha dhan ay leeyihiin dadka tarxiilaya baa meesha la isku keenaa marka la isma cadaabo la isma dhibo oo cuntooyin fiican baa ka jiro caadi de xabsi ma wuxuu yahay meesha waan lacag yar soo dirsanay maxay hayday dhar baan iibsan cream baan iibsanay saabun baan cunto fiican baan bilownay inaan cunno xabsiga marka Soomaalina oo ugu tagnay meesha ma ogti meesha baa la bilaabay in la isbarbarto oo waxaan ku ri la wararta Itoobiyaanka iyo Eritreanka sidii loo waday baa wadankooda laga Suuriyaanka Afghanistanka Hindidii wax walba horta wadankiisa yimid oo tarxiil annaga Soomaaliya assalaamu calaykum natrawa weyne waa marka ogaaday wadankayga inuuna wadan jiraba ahayn ciidi agagaarkayga ma soo marin ciidi maalmaha malaha Soomaaliya doorasho waxba ka jirto aawud war inaan Soomaali ahay baa iska shakiyay safaaradaha kale sida loogu imanayo cuntada loo keenayo dharka loo keenayo taleefanada loo wacayo annagu ciil iyo cadaan u dhimanay cid yaatiina yiri ma jirto Soomaaliya wadan jira ma ahan marka dadkii waxay u kala baxeen qaar iska raba inay safaaradu timaado oo wadankoodii loo celiyo qaarkii day basiirin iyo qaar sii raba inay tahriibka sii wadaan oo hadafkoodii wali ku taagan aan markaa waxaan ku jiray dadka raba inay wadanka loo celiyo aniga bis masaxariib aan ku laabanaya mar labaad alleeka safaarada sug cidi agagaarkayga ma soo askartaan la hadalaa waxaan ku nidhaanaa annaga maxaa noo xala idinkiyaadaydeen safaaradii wali ma imanina dib u laabto minal guura maseer annagii way dadkaygii annaga safaaradeedii waan iska aamusnay qadarkaygu miska sugaynaa xabsigii malaa waxaan ku jirnay bil mise 2 bilood mise 3 bilood laakiin noloshu weli okay way sidaa u sugaynay safaaradda markaan cimrigeygii ku cunno baana lagu yiri Soomaaliya wadan jiraba ma aha idinka hay'adaha la inagu yeeraya hay'ad baa noo timiday hay'ad waxay nagu tir xabsiga annaga inaga saarayna xero qaxooteen inaga geynayna interview waxba inaga qaadayna annaga yurub inaga geynayna meela rabay roobi gudda ka dhacdo الله هيدي بناتي مضي وحبسي قلنا لقى صاري وحن تني مقالة شكراب لي دادو قحوتي بضات شوكتو شكراب تمركها ميل والبا صومالي ويشوكتا ميل والبا صومالي ويشوكتا صومالي بضات وانقول تقني ميشا يدي أجانب كلام الله صومالي دي بميشا نقصور دويسي والله إسبار برتي أمي ماشي ريدوان كلا كعسانين ميشا نولر إسكير عادي بقى هيدا وحيرا قحوتي وقت بي عادي نايد ميل عادي مجرتين dadkii oo markaa wareysano ku nidi intee joogtaan oo wax wali interview ma laynaga qaaday oo kii kale dad ila interview ana laga qaaday dad ila safarran sugeynaa dad ila anaga bas caafimaadkii baa noo dhiman wada qaxootidee laakiin markaan weydiinay muddaday joogaan laabtana go'day 5 sano 6 sano 7 sano excuse me oo 7 sano qaxootiga sugayo inta wadankii ku laabtaan 5 ciyaal la dhali lahaa allahayka allah anagu ma sugeyna meeshan xal noo raadi Soomaali ma fadhiisatay waa ogtii waxay raadsadeen samsaari hadda Suudaan man joognaa soo samsaari mukhallis baa raadsanay hadda Suudaan man joognaa in lacagta way naga yaraatee waa faa'iidadii ugu weynayd ee askartuna qabatay aan ka helay haba iska go'oon jabnay hadda Suudaan lacagtii baa naga yaraatay fahmaysan yani halkan ka bixin lahayn 8,000 9,000 hadda waxaan bixinaynaa 3,000 jua
مخلص باراتنا نمان بالله هذا اللي خرطوم شوقه أو كشقي والصومالي صومالي هذا مقشي يدلي صومالي بديش هارتا مخلصين تيجا بك بحب حرة قحوتك أو كستصبني يقول هاي أنا وين تسكو دري أنا وين تسكو دري أنا ماشي ذي في أنت أنا ماشي ذي فاد ما أركز أنا قصاص أنا تسلي بيكو كلس أنا تسجيل أبي ودك وداي من مركها ما فاهم يصير ميد والبو يسفان يا يدك قن عيسى أنا ماشي الله صعد ما صعد قلم أول بوالي والله يصو يا ما أول بعقل جاي يكسر تهريبي وامية قف يصو تهريبي يصو معها إسكر حدنا أنا واسكت بالصعداء هل يدي اللي لون رقم ugu dambayn adigu nin baan helay nagu yiri saas weeyo nolol amaano de isagu bismu amaaninay dad badan noo amaanin jirin dadkiisu ma rafaadaan dadkiisu waa sidan dadkiisu Yurub laba isha ku galaan laba maahayd laba bilood biskii baan ku heshinay kii baan lacagay wixii ka wada hadalay okay habeen ma baxaysan istiyaariya saas dhaha kii kala dhaha khartum baan nigeynaya khartum bad waxaad joogaysan 3 ishood ku nasanaysan halkaas aan niga diraya okay tout va bien illa halkan joogu waa okay alla de mar labaad badana Liibiya la isku diyaarinaya okay wal istiyaariye shandadii wax walba wala xidhay dadkii israab waxay siraadeen waa kaas anigi adiga meelna kuma kala hadhayno wasla deerino wasla dhimanna wasla almuhim waa istiyaarin habeenimadi baan ka baxsanay shakaraabti xiradii qaxootida waxna loo keenay gaari qabaala gaarigan de Toyota baan loo keenay korkanka fuulnay gabadh baa ku shirkeedana gashay وان سعني إلا مركن سومالي سوفانتي وكالا إسك أرجون نصتي أو يا قوقي بلا بيبانه أو عيدي إيو صحاريه رفاتكي وحياة صدح بلود باك سوري كتير نصت أنا قد أنا رجع نلشي كو كصاب بلا بني لا سعني هبينكي وان سعني خرطوم ما صعنايا واق مركو سو بريي الخرطوم أولوا لبا جاري بنقصاب حنيا أم بحا مقلا ونحبضو جاري بصارن حبضي مركها مقلي gaarigayga anaga u istaagay kii naga horeeyay laakiin daas uu ka sii daayay vitesse ugu dambeeyay vitesse xawaari ugu dambeeyay buu ku waday kii naga horeeyay kaayagu cunug yar buu ayu iska istaagay intuu cabsado markuu istaagay nimankii baa noo yimid nimanku tuugay ahaayeen waana la xadaya shimay isku dabalay alaab alle wala isxadaa meesha wala isdhaca gaarigayga markuu saa u istaagay niman baaba saa noo soo hareereeyay صدق قاعدين كلا كرة ترول كي مركا هالله يرجوج هدق ترول كي أنا جو أركينا بحب الله قلبفتي وحبدي وجوه الرئيسين مقلي أنتي كلا عندك حبذا ويسكستين وحر ذي ما أعرف نيكي أنا جو أركينا ما الله قلبفتي فدي ما يعلدي مركا وإن قاعدين كرة لقليه أكرتا جبر بقى مركا لقوله تشتي الشركة قشي بعد قالوا هذا بلاقي ولا بيتر بوقتها نقول ما دام دق زي هاي إسكابة شوقين تورم وأنا جنا كحي قاعدين بالنص gabadhii ku hadhay ninkii xabada lagu dhuftay ninkii malaha telefoon buu wacay oo meeshii baa gabadha loogu yimid oo gabadha gaarigii naga horeeyay baxsaday cararay ayaa markaa iyada laga dabageeyay annaga soo hadhnay annagoo yaabanoo leh halkeen noola wada maxaa weeye dagaalkani oo kan ninka nagu yiri qartoon baa nigeynaya waa raaxaysanaysan Yurub laba cisho ku galaysa alle waana la dhacay ninku hadalkiisu xaqiiq bay ahayd ninkii asagaana waa fahmaysan soo ma warkasaan wada anigu markii waan iswaalwaalay miyaa ani ma garanayo waqtigii wax iga qaldana ninkii miyaan ku yiraalkeen noo wad qoriga dabadiisa igu dhuftay qoriga dawa kan xagga dambe busa igu dhuftay halkaas ma aragteen laftaas ayuu igu dhuftay laftu markaa imeenan jabin laakiin cadgo waa igu dhacay hilibka kala go'ay bismiirkii baa iga tagay dadkii baa isoo qaaday mare igu xirxireen maxay hayday ma wixii ka dambeeyaan ma waxaan ku soo aqleystay iyadoo gurina lagu hayo oo korka naga xirayay guri markaas soo baraarugay baan ku maxaa dhacay maxaa qaldan halkee wax ka jira halkee noola wadaa ninkuma been buu noo sheegay iyagii baaba nagu yiri bani anagu waan soo dhacnay dad kale niga iibinayna ninkii ni soo kaxeeyay way iskugu dhamaatay hal gaari baa u badbaaday idinkana anaga inile oo hadda saasan ku dhacanahay ha naba dhaco anaga waxay naga gelin lacag naga ma bixine halkee idinku noo anagu waxaan la raadinaa dad kale oo in iibsada مسلسل عادي يا مرقي كد بارتيغا مريبا ما بقرني انا كومنتي مسك سو قادنايا اسكلا سocdo war المهم nimankii markay nagu waraadeen anaga in iibsan hayba la iibsatayna nawada dad badan bay weydiinaya gabadhii ko isoo tahriibis gabadhii halkii ku dambeysay gabadh ma rabto inaan meelaan kaga hadlo no more su'aalana casay weydiinina thank you dadkii waxay noo raadiyeen cidka iibsata alaabta way heleen and then wala isku gudbiyay money can adigana iga qabso alaabta camal
dadkii way nagxeeyeen say noo wadaan bay waxay nageeyeen xero kale markana anagu mujaahidiin soo jabay baan nahay wiil baa isku dayay marka intaanan xeradan galin inuu baxsado xerada markaa sheed camal buu kasoo arkay markuu ogaaday inaan meesha u soconno buu is yidhi gaadhigii buu iska tuuray doqon miyuu ahaa horta sorry iga raali noqon laakiin what's wrong with you ayada xeradu intaa noo jirto niman suudaaniyiin aan nala saarayin buu gaadhiga iska tuuray sababa waa iska raali noqon hadda meesha maba fogaba meesha waa halkan 2 daqiiqad waa u jeednaa xerada nimano gaadhi way nala saarayin wuu iska tuuray almuhim ninkii xerada iska lahaa baa soo baxay ninka itusa buu yidhi gaadhiga iska tuuray la ninka markiiba waa la qabtee ninkii intusaa u eegay ayuu ku yidhi halkeed u cararaysid wadwaalada adigu ninka markaa xerada iska lahaa Soomaali buu ahaa ninka Cabdirasaaq baa la yiraahdaa hooyaday aabbaha magacaagu waan sheegay waxba igama meesha digu guumaysan jirtay ma joogi okay armayna magaciisa baa ahayn uu iska sheegtay magaca shaqada almuhim saas iyaga dhan u badan yihiin ninku waa Soomaali soo maaha annagu markaa aragnay inuu Soomaali ku hadlayo oo nalagu yirina waa kana ninka xerada iska lahaa farxad baa u dhimanay farxadeedii وانا اكون رابا وما ديكا ولا الحمد لله زماني هديبو اللابتوب بنقول نيكي وحنا نقولون صومال ما حلا لا صومال ما واحد عنا تي حتى الصومال بابا كواد ليس ما وحمينيش هيك عم بيقولي ماشي صومال لقى ما قرأ ايه انت تصفق الشن حرد القلق عم بنقول حرد واتي حرد القلق هاي annagii waan yaabanahay Suudaaniya Etoobiyaaniya oo baan noo hanjabi jirtay Soomaali noo hanjabayo adkaatay qaali ya iskaari wali iskaari almuhim xariiban iska galay annagoo yaaban xaradii markaan saa u galay maxay ahayd iska yara jeejeebsanay meeshii ka soo baxdo war adoo taagan baad seexanaysaa annaga waxaan aragnay 8,000 oo Soomaaliya 800 ma no 8,000 oo Soomaaliya oo saf saa ugu jirto baxaysa 8,000 meel ay joogan cod inta lagma maqlaysid saf meel guri saa uga soo baxay anagu marka banaankan jijibnay saf soo baxay safku dheera uu socdaan maba dhamaanay uu socdaan wala soo baxaya mid 2 3 4 halka la socda wala soo ka jeem safku socdaan annagu waxaan leenahay dadku guriga kama soo dhamaanayaan dadku marka midkii ugu dambeeyay aragnay inuu soo baxay baan lagu dhiidan kana kac raaca halkee la tagayaa ma dhaqaaq safka safkii baan iska daba galay saxoon waxa gal sidii naloo waday baa meel banaan la geeyay kaka jooban ما اسمنا كادي ما هي هذا كادي هذه كلا قلبتها كلا لسويسة بس خلاص اسكر رادي بقى ده ورا المهم هذا الصف كلا سوق قال يقول قال قصوا لابني يا مركن أنا ما دام نقول ولي نولو ديارنا ونطلع عصبنا هاي برنامج يدين كسيح لبعد الجوري ويسكفي عندي حل كل يلعب هي تتكيب جوري لكو حري تتكو بدنا يعني سديتكم مركن لا سديتكم exact ما هني يعني بضني هي أنا وحالي هون واجن يوم بري ضدك أركتي دسيو إجيين يوحيين واجن مركز سأو بري أمان قبله ويلل صومالي أجانب كله ضدك لما تشوف ما تشوفان صومالي بس محلي نيا هيستا إنت تشوف تطلعي تطبق بلاد بنشوفه تطلعي السنة بنشوفه مشان أو محلي نيا هيستا العقبة نلا هيستايو إن ليبيا ما أصعنا نقول أو هالكي وصعتان أنكو قاهرة وصعدنا ما فاهمين ورني يوم بنقول ماشي ليبيا وحاسك ما جرتي هل كان قاهرة لقيتها أم بدون أم بديد أم بيل قاهرة صوتنا قاهرة أنا بتجي كره نو ولا لم بتجي أم بهتجين أضي كوتها لا العقبة بحنيسة وسيد ليبيا كل العقبة بحنيسة قاهرة اللي قولوا فينا excuse me العقبة بحنا مركا وايمسا صدقكوني $5 قاهرة ها ولا أنا قبل ما نكى وجوه الرئيسين اللي سو أفضوبتي تبتها داس وها الرياكشن كيجو مركب ولا دور شمل هيت ماشي تطبق بلاد بنشوفه سيديد بلاد بنشوفه إلا العكتها كب حنيسيد ماشي عادي كام صاريس هذا النلول وباهن هاي صدق هذا كونيش أنت بقول بح صدق كونيش مقول بح قاهرة لو قلت ريا قاهرة مرة بو قاهرة صوتنا أنا تجي وش إن بدل ما نوصل هذا كرسون دي وقفهمينا اللي يقول الله بقى أتكاتي شيء كده حد يرونه أتكاتي أو ما حد عنتانو ما حد عبتان
jirikaan baaldi weyn baa halkaa yaalo oo dadku biyaha ka shushubtaan qof walba wuxuu haystaa caagad Thailand sidan camala kaas buu buuxsanayaa kaas uu isticmaalaya laba waqtina wax baa la cunaa galabtii iyo subaxina waxa la cunaa makaroona galabtina waxa la cunaa bariis oo baasi bariis baa meesha ka jirtaba ha haye qorshe bal baahi baan haysanoo keena aroorna way ahayd Soomaa saddex afar shan lix fariiso mana lagu waa fariisanaan waan yaabana waxaan isleeyahay xabad maan wax nolol siin no walaal kaali safka buuxi kaali un baleeyuur sideed gabdhood baan saa u fadhiisanay saxan ballaaran oo makaroona cad ku jiraya waa makaroona cad doona bilaa milix uma lagu yirun soo fadhiiso cun hogaaye inta saa weego manade bas tiila tiriyanku siteen baa xasuustaa doon ku casaysan la makaroona qoshi gacantaan iskala galgalay waan iska cuncunay dadka faarahooga wasakhda cuncunka almi anagoo la balaboonayna iska cuncunay waan yaabana calanay macawiyo waa magafa caadi oo laakiin suulidaana oo qaahira la tagaya ninkii baan la hadalno ku niri walaa hadii Soomaali baaba tahee bal hadii Soomaali nagu leeyahay hadalo warka walbana fahansi hadaa rabtana lacagta iska bixi qaahiraan ku diraynaa hadaa rabtidna hadda halkan ay iskaga dhimanaysa adiga doorashada leh oo iska dhaqaaqay soo dhamaystir kula war waxay 10 sano xataa kuma dhamaanayaan oo meeshii sidii iskaga farfadheen markuu yaabkii amankaaga naga dhamaan marka anaga dadkiina la soo dhacay ninkii baan la hadlo waxaan ku niri anaga waana la dhacay waxa la leeyahay qaahir inta ninkan la hadashid waa nin Soomaali oo Cabdirasaaq la dhahay ninka nagala hadalo kaalayna cisho oo Liibiya sheegayso noo marka Cabdirasaaqan iyo ninkii awalna soo diray Liibiya noo wada way yaqaan oo ganacsi gaar ah ka dhaxeeya ninkii marka ninkii xirada haystay buu la hadlo wuxuu ku yiri dadkan aniga watay dadkan ballan baa u qaaday hay u xumaynayna dadkan iska soo dir ninkii wuxuu ku yiri wax la diray ma jirto dhiyo way isla shaqaysana oo dad kale oo meesha xirada qaxootiga jooga ma noo soo diraysaa oo shaqadaya ma ku heshiina waxaan u maleynayaa labadii nin baa heshiiyay oo mooyay adigu ninkii baan soo wuxuu nagu yiri ha cabsanina qaahira la nidiraya Liibiya waa la xiray waa beentiya Liibiya waa la xiray Liibiya waa la joojiyay kana kii kala ah ee qaahira jirta qaahira dadku ka sii baxaan oo badda qaahira bay Itaaliya ka galaan ee qaahira aada waraadu noo talin meesida anaga oge ninka nagala hadal baan ku niriye waa sideesad wax wada ninku wuxuu already idinka waa layna dhacay aan waxba kama bedeli karo kaliya waxaan ku leeyahay ninka inaan sasaboon dhaho dadkan Liibiya u socdaan iyo xaasay bal idinkuna istajiyo oo jawiina faantaan isku day war maxaan jawi faanna shoog baa nagu dhacay adoo markaan laba isbuuc joognay ee aragnay inaan meesha waxba ka dhaqaaqaynin oo sheekadu sidaas tahay doon iska yeelay maxaa markaas waxaan adeegsiyay telefoon waxna lagu reerkina waxa 350 ka soo dira ee qaahira oo kaas isku diyaariya reerka intaad wacdid maxaad dhihi Suudaan baa laygu haystaaye maxay hayday 350 soo dir qaahira u socda reerku iyaga ku la yaab markaas annaga madaxa xoqanayno isla qorshe bal wac buu nin walba xaafadiisii wacay dawanigan xaafadeedii waxay ku yiri kaas Suudaan baa laygu haystaaye 350 bal soo dir qaahira u socda xaafadeedii way yaabeen qaahira u socda qaahira maxay ki oo seesi Suudaan lagu haysto Saudi Liibiya u socday anagu Liibiya isku diyaarinayna وانا كوري ليبيا وركي واسكو soo xirantay Liibiya waa la xiray liideen wixii lagu shubad aaminaysa Liibiya waa la xiray haday lacag soo dir 350 soo oo 350 bad euro ku galaysa euro ma ay qaahira u socdo tii qaahira maxaa ka yaal oo qaahira dad rabtaan anaga ku dir lahayn war meesha anigu qaahira anu ma dooranina waa la haystaa qaahira qasab liigu geynay lacag iska soo diray xaafada xilliga dood la galday aniga xaafadeeda afcaad waxay guuleynaa qaahira dad rabtaan anaga ku dirayna soo laabo lacagan soo dirayna ma jirtay la ilaaha illa allah soo laabo halkay jirtaa inaan kafsamayay baa u haystaa inaan joogo meel habeenkii bas la kaadiyo ma ogaa alla aniga oohin oo yaay waadaleeyo geegalay waalidey xaafadeed xaaraantii al xaramiyay keligay ma dadkii oo dhan qaahira u socda qaahira what barsoola dadkii oo dhan cid lacag loo soo diro bal adigu bas sawiro qof intuu Suudaan ku dhex fadhiistay ku yiri qaahira lacag saadir haddaan Liibiya toosu tagi lahayn oo halka mareen wacnaba reerku dib iska ogeen Liibiya xaaladda ka jirtay markaaba kaan haysanay ka haystaaba markaa uu isku dayay inuu lacag ku helo Suudaan lamana maqal lamana arag dad leh waana lagu haystaa lacag waana laga rabaa waa kaas ayaa lacag ka keen lacag xaafadeeda wax bari ooy u calaacal u barooro ka yaab naaniga Suudaan dhex fadhiisatay ay dhin lacag baa la iga rabaa orod Liibiya dad sheegaysid u carcaraysid intaad aadida naga soo wacbal waa kaas waadan tan barka wax ga cishna noo لكن أنا أنت توداني دح فريستان أنا هي أو ها بقى أنا بس باني هالكني وماشي كل ما لاين برجع
waxaan ogaaday inaynan ceelna ii qodnayn inaynan cid iga dambaynin waan isdhiibay bas dadkii ila mid intooda ugu badan dadkii ila mid meesha iska fadhiya rafaadka cadhada dee cadho injirta uskaga duruufta guumaysigu intaa kuu dheer maanta dhan kun jeer kaadidtii ugu xumayd hadday ku hayso waad ku kaadin kartaa le suuli meesha kama jirto waanaga meesha iska joognay bil 2 bil 3 bil markay ahayd gacantii weli sidii bay jaban tahay cidi ima kabin cidi ima daweynin dadka intii kale lacagta loo soo diray khalaas safar bay isku diyaariyeen way bixin qaahira loo diray annaga soo har annagu Yurub bas waan iska ilownay ba kaanu waxa u malaynaa inaan Liibiya joogno oo badii suga Yurub niyadeeda way ka baxday bas qaahira Yurub noo noqon iska sugo muddo xaafadiini waxa xaafad kuma aaminayso markuu ninkii arkeenayna waxba naga soo soconay wuxuu yiri waad ku dhimanaysaan meesha waad ku dhimanaysaan hadda lacagta iska bixinaysa meesha ciqaabtii baa la sii ad cuntadii labada waqti la siinayay baa hal waqti laga dhigay ninku wuxuu isleeyahay ogaan bay lacagta u diidayaan inay soo diraan anag maxaa gacanteeda ku haynaa ku diidan reerkaygu dad qaahiro u socda daynadu weligood maqal anag maxaan dambiyoon sameeyay dee meesha iska jooga Alan Cabdirasaaq ninka si sareeya baaba joogaba oo khartuun isagu degan oo taleefan wax ku maamula Cabdirasaaq meesha uu iska joogay Maxamed Tiin baa ninka la dhahaa baa ku tiinays damalax lagu yiri dadkani dad lacag bixinaya ma heebal u kaalayo yaa u yara hanjab ninkii baa noo mid wuxuu ku yiri maxay u diidan in lacagta u bixisaan meesha mina ku dhimataa rabtaan heeda dhibaatadu annaga ma ahay waa waalidkayga weligood may maqal dad qaahiro u socdo Suudaan ka soo calacalay annaga hadda lacag naga rabti Liibiya noo dir Liibiya bal waa ka sameyn nadil hadda lacag naga weey alla Liibiya ku dhima waa sharafe laakiin Suudaan ku dhima la marka intii meesha la joogay lagu rafaadsan waxaan ii sheegay meelaan deg meesha waa meel weyn haye oo dumarkuna halkan oo kale degan yihiin nimankuna halkan oo kale waxba u dhaxeeyo oo kala jaraya dumarkii iyo gabdhaha nimankii naaga dad stress ka dhacay baan oo meesha bilaaxaba nimanka warqada isku qorqori jir nimankuna warqada halkaga soo qorqoraan inoo soo diraan annaga halkan waxa isleena waqti isku dhaafiya hadii kale leen meesha ku dhimanaysa Maxamed Tiin baa markaa maalmahaana nala joogo intuu isugu maqan yahay Cabdirasaaqna maqan yahay waxa jooga kura yar oo meesha taleefanada dadka ugu wacoona aad uga cabsanno laakiin deeyo dadka aad ka looga cabsadaa waa Maxamed Tiin iyo Cabdirasaaq kurayan kale cidba uma joojiso alla warqad u socotay qaybta nimanka Maxamed Tiin dhaxda kama heli karo warqadii ha soo qaado ha akhriyo magaca ku socotaa ba ku qoran alla Maxamed Tiin gabadhina uu yeeray ninkiina uu yeeray oo idinkoo meeshan ku jira oo lacagta inigu haystana isiin la miyuba qooq inni hay naagtii boorta u yeeray kaale naya maxshoonaysid u bukuuri gabadhii intuu banaanka u saaray ayuu sida dameeraha maaragtay sida hadhuudhka sida loo feedago intuu soo burburiyay uu saas ka dhigay ilaa ay ka socon kari weysay ayuu guri kaale qaada gabadhii 3 xishood dambe la dheeyay ninkii baa ku soo haray naagtii hadii saa loo galay ninka maxaad malaynaysan ninkii wuxuu ku hashaanu gabadha maba garanayaba gabadhu iyada ay soo qortaan maxaad igu haysataa meesha waxa la raadinayaa sabab yar oo lagu dilay ninkana isaga bakhti baaba laga meesha naagi laga garaacay ninaan ku jooga ninkii marka saana loo soo maray saana loo sii maray baa meesha lagu soo warqad dambe nin dambe bahal dambe no way isku dhamaatay marka meesha waxa joogay wiil Maxamed Tiin kan uu adeer u yahay oo asaguna meesha ka shaqeey oo magaciisa Nuux la dhaho Nuuxu hooyada iyo aabaha aan hooyo waxba ima yeelinay aakhiri adduunba haliiba horta adigu ma aragtay cadaab toos baa u galaysa adii xataa su'aalo ma lagu weydiinay mar rabbi waxa maar no adiga cala tool cadaab baa u galaysa Nuuxaas intuu been iga sheegay ayuu Maxamed Tiin igu diray anigu ku ducaysanay ilaahu rabbi oo Maxamed Tiin kulliba 3 xish 4 cisho joogay ilaahu isagu wajigaaga ba arag ilaahu meesha ka kaxay ayuu ku yiri tan ma aragtay tani waaba atirshada gabdhaha warqadaha ayada qorta Maxamed Tiin kaanigana ha ii yeero badaa kuma jiraya aan waliga yaalay nin waxba uma qor Nuux isaga igu warwareegi jira markuu arkay inaan aniga waxba iga soo soconin ayuu sidii tan habla jajabiyay laan isagu ma dili kare ma ku dirtid adeer waa kii yaray guurinaya ma adiga waxa la sheegay marunba walaal anigu waliga yaalay warqad ma layba soo qorin warqadna ma qorin waxa la soo malaynaya warqad bil ka hor la ii soo qoron wali kaba jawaabinba warqadan adii lagu ma soo qorin te ani hadii la ii soo qoraan midan qorin aad arag وبدين دعك تحب عضو أكسين ده ترى بيجوري نايا دربي قعنت صار بيجوري يعني سأوتشيتو دربي ساق عنت وصار ها وات صار هي قعنت ضحت ساقوكو هاي نيسا
قبل كنتو كدعيو كل زي كده تاجنا ما الدولة ندير الحمد لله هذه مرة يصدح ساعة بس عكسوري توم مرنا عند الدجسنة مرنا كرسة مرنا سود الدجنة إيش كيف صح هذا نوع حنالا كينه ونقبل ليه بيجي قصة عضل الصاد عاي حاجة يجي لك السبون ورك يجون كبر دجلاء بقصة يدي برجي صدنا هاي ولي سيدي قرقروح بدنا ولي بعنا صحريح وأنا اللي قصة عليا يجوا هاد يتوب بكسر بعنا لا كانوا قرقروح بدنا ده وإحنا ما قروح بدنا عنا جنب بين ده يجوا قروح ما دام أنا بالرفاهة الظروف يوحى نسكي جري أيق فريش صنع وحاول أرني براك شوكري كترنك ناجي ميت كم ذنب باتري كريم بالا يجا حضي ملا كريم يدير در إيو وحبيسي ستيمك كريم بالا يجا حضي ناجان هلا إيه بار ناجي ولا باري وحبوا ولا جوا واتسكسر شرتهم قلبي بايجا حضي excuse me ها أديك يجا حضي لو إحنا كل شيء عدد ملا نيجي داوني سيد وحتى يسقط جامد بلا إذا بدو ولي الله يكون عفيني ناكتم من الله إذا ملائكة شوف سنة ده وتسكين نبتون محمدين ما هنكو قد عويني ناس إما بارين سو إجماد وين محمدين كان درد بيه هيستها يقول ترين ولا يجا فريسو ما أنا محمدين ما كوزة تعويني ولا لا يتعويني والله بالله عبا معاد هذا كلام حندي كرنا هذا أرض دعوة شديد أرض FBI حتى لكن وقتي مقع محمدين بابا كان حيا ولا لها الدعوين إلى من كل شيء درت شلي بعد مركو يدلي يعني يبود اللي دربي عنتي ولا لي معاني هاي بدر نين كاسي يعني هاي إسكان تسيمون كود عيني ولا المشون وان كبحينا إلى أي كعب ولا الكريم حوني وحبوا مشاقي ولا ناكتي نكتها دي بس قبل وحي يقول هذا إنها الدعويسو محاكا ببريسا أرد هاكو سدعو أظن ما تقادين سوما سويسكما وقتها إسكتها كتير محبتينكم ما لبا وصدح والك بدن بكون فني أو صدح قولي ما انكسر علي أنا جيب الصدى إذا كالكالشيوم كم مليليوم كبيد دحسين أدول ميم قبل ويتكتو محمدينا إني قلبي بكري من جات ما حشوني صار كرام ما لقى هلا اللي تشوقه إلا بنقول دارشي وحو يا كرام باكو عصبة كلي أظن محمدين كي بيمد ما أديك أبو دني واقع إصاص على هذا شن مسافر قول أو أن إيضو أيو يقول دفتر دربي قاعد صار بودني دربي ما قاعد كوهي ما أنت بيقول جواجا كوجو بري قبل كوجو دحية توجني ما بكو دير بين داديك ماشي سان أتشوجي كم إيه قرارين أيوة حي مدي صدح ويمسافر عبد الله حسن رستا سوري شن أدملها wiilasha sayibintu isaga u tagay waxay ku raadeen gabadhan waa gabadh aad u fiican anaga isla soconay ilaa saxariyo waan naqaanaa saqajaanimadan kuma naqaan iska cafi markan wiilash marka wiilal iska waaweyn oo day qofku markuu iska yaro weyn yahay mas'uul yahayna waa la ixtiraamaa moogta abaalkiina weligay ma gudi karo aad ba u mahadsantiin kun jeer ninkii hore iska galbiigu intaan galay baan naagtiisa u eegay meeshan baan ku wuri meeshan laguma waaree waa laga baxaya badood xuno waxa tahay kreem ku faraxsanay هذه كلام جاي عادة ولي بيسيت المهم أنا محمدين واستاشني إسكو داش سيدي وهيد إن ماشي وتشوف ورقدين اللو قري ومركم محمدين تاجي ناقو فضري أهاين مركا ناقه هوي وحشترك أوضع دربي بقى نور دحيسو معانيكي وأنكي ويلاش قبلو وحي روان بيقول كيسكي الشيقي نمان كورنا مقلي قيلضة هيسها بودكا تشاسكا لا إله إلا الله inta waxay isleeyihiin lama yaabaye stress-ka isdhaafiya oo meesha hadii lagu stressay leen waxa xaaladu xumaanaysa anagoo sidii u ah bay meesha gabadhi ku dhimatay ilaahay ha un xariisto ilaahay waxa uu weydiinayaa gabadhaas inuu jannatul firdaws inuu ka waraabiyo gabadha zamzam baa la dhahaa maxay ahayd aqoon saas isku maana lahayn meesha umaanday isku baranay gabadh aad iyo aad u fiican oo aad u degan oo buuq badnayn oo wareer badnayn bay ahayd gabadhaasi manay xanuunsan aad bay u caafimaad qabtay way qosli jirtay wayna la farxi jirtay habeen un baa lagu soo bood waliba ma ahayne koomay gashay maalnimadii oo kale intaan timaha u dabay ay timaha ii dabi gutri aad baan timaha u dabi jiray gabdhaha dhan anaa timaha u dabi jiray maalinkii intaan timaha u dabay bay galabtii oo kale koomada gashay koomadii waxay ku jirtay 3 cisho mise 4 cisho habeenkii shanaadna naftaa ka baxday ilaahay ha u naxariisto marka aragnay meesha in lagu dhimanayo ay xaaladu saasoo dhan u sii xun tahay khalaas baan nidhi meesha fadhima yaalo meesha laga mana baxsan karo cid u qeylisid maba jirtaba ina ilaahay uu gacantaaga tid mooyaan
marka dadkani waxay u boodboodayaan oo heesayaan warqadahan iyo waxaan u wadwadaan waxay isdhaafinayaan stresska iyo rafaadkan iyo waxaan eleen hadad nolosha u fiirsatid meel saa u soo wixii baa kugu soo maamaaxanayay waa sababta u fadhin laayihiin gabadhaas mar walba way fikiri jirtay 24 saac way fikiri jirtay awlaad bay malaakiga soodka u malaynayaan Soomaaliya mar walba waxay dhigi jirtay ciyaalkeygii marka ilaahay waxaan weydiinaa samsamino ilaaha u naxariisto eedankana u soo duceeyo waradu meeshiisan ugu jiray 4 bilood mise 5 bilood saan u joog oo dadkii lacagta la baxayna qaahiro loo diray baa waxa la yiri dadkan xal kale looma hayo lacagtoodii way diideen inay dhiibtaan marka Liibiyada ooyaan baan u diraynaa Allahu akbar mid bay laakiin ku xum qof markuu wadankiisa ka soo baxo Liibiya galo wali uu adag yahay يعني ولي دفاعي تشركيسو اوكي لكن انا waxaan nahay dad soo gubtay dad hal waqti wax cunayay makaroona cad oo bilaa milix cunayay dadkaas ma yaga saxaraba dhaafaya hadda Liibiyadii ba laga cabsanay qof walba intuu isku eega buu leeyahay nafinagu ma jirto wada tray waan beebayna deem kala doorasho leeday Liibiya lagu yiri Liibiya waa tagitay soo lacag laga ma wayn ha Liibiyada oo isa lagu okay marka warkan war caadi toosna loogu yiri maahay waa waran xanxan ku maqalay anagoo sidii uga sheekaysan noolay wallahi billahi anigu inta saxaraha dhaafayba milihi waa ka saaki kala qaarna leeyihiin qaarna dhahayaanba reerkeyga Suudaan bay lacag iigu soo diri waayeen Liibiya hadana isku galaafta oo reerkoogiiba ma aragtay wali ka sii cabsan baa habeen anagoo iska hurhurudna albaabka kaca gidigiinuba kaca waan yaab hebel qalbi Axmed Ubax Maxamed kii kale soo baxa dadka markaa liis bay magac ku saas ugu qoray markay soo saareen adi ilaa 20 qof 24 qof baa intii kan lagu dib u laabto seexda 24 qof ana ku jira anu waan yaabanahay saaxiibaday baa la iga reebayaa mar saaxiibadu tiyaan ku Itoobiya iska soo raacnay ma haya waa mid kale halkaas uu isku fahanay meesha waa la isbartaa la kala yaaca la isbartaa war nolosh waxa weeye qoshi marka gabadhan aad isku fahanay baa meesha la iga reeb hoogayay markan bas 24 keegii baa anoo 24 iska leeyahay tira kuma gar inteedii baa waan la waday habeenkii oo dhan waxaan la guurintan gaadhiga si saarnayso idinka ma ahayn dadkii Liibiya ha hada Liibiya leeni oo ay faraxsantii ma farxi saxara baynan dhaafay garamay annaga dhan indhahay soo caadi ma indhahay saasay ahaayeen zero energy war sidii loo waday baana loo geeyay dad cusub oo iyaguna qaarkood ka yimid Kenya waa markaa ogaaday in Kenya qaybtan South Sudan laga soo tahriyay waxa laga yimaadaa Yemen South Sudan Ethiopia saddexda wadan bay Sudan isku yimaadaan Sudan baa Liibiya laga dad badan oo Yemen ka yimiday ee Kenya Ethiopia baana lagu daray hadda waan badanahay waa sidii doorkii horaan saxaraha u soconay aan u badnayn ba markana u badanahay laakiin mar walba elitarianka badan markan waan isdiyaarinay sidii la mid ah cabaayadana la qaybiyay kaba buurana la siiyay sidii uun dayado exact sidii doorkii neef baana loo qalay neef goorma noogu dambeysay saxaraha uma neef la isku qalaabanayso sidii la mid doorka waxay kaga xun tahay markii hore waxay ahayd kulaylo hadda laakiin waa qaboobi bishii November December may ahayd intaasan ku qiyaas dhaxama dhacay jaakeetay noo qaybiyeen kaba adag sharabaato waxa soo dhan hadda xataa saxaraha lagama yaabay harad ugu dhimatay sababtoo waa qaboobo aniga saaxiibadii wala yareeb Soomaha saaxiib kale waa inaan helaade leen noloshu bila saaxiib ma soconaysa maadaama telefoon la haysan wax lagu mashquulanay jirin waa inaad heshaa qof ay isfaantaan isku sheekadii isku kiin baxdo sa isku af haysan afka sa isku hoos haysan banka gabdhii baan saaw eegay gabar baan kala soo baxay shankaroon gaana marka shankaroon baa leeyahay shankaroontii baa iswarwareysanay hayi ka waran joogo waa kaasaayo shankaroonta marka hatta meeshii lagu haystay qaahiro waan isla joognay laakiin waqtigiis ma aan fahansanay hadda isfahanay bas markan saxariye baan galay waan soconay ani saxara experience ma ulay moogtii mar baa la soo qabtay dadkii kala u bootay xalay halka ma taqaanaan intaasan sii soconaa wadi gabdhaha dadkii baan markaa wax sii sharaxaya tamartiiba leeyahay saxaraha doorkii horeena laga qabtay keligay hadda kama ihiyay waxaan nahay laba gabdhood waa aniga iyo Ubax
يعني أو بحب هالكن سوال ولا نوضك وش كين أنا هالكن ما نلقى قبتي موجين هذا كهر بس أنا كي هربي هاي حاجة بس مرة شغلة بجودة ودانا المهم dadka dhan anaga labadayda inuu soo ordeen walla gabdhaha saxaraad koor laga soo celi meedinka haabalna ka warraba see weejo anagu de maxaan waranaa jawi isku mid maahay waqtigiina kulayleed haddana waa qaboobe caadi wallahi wuxuu maskaga tartarnaa wallahi bilaa ka soo laga qabtay saasoo kii kalo المهم سووني saxarahan waa soo dhaafnay alxamdulillah hadda waxaan taaganahay xuduudkii Liibiya وانا لدجيجي كالعادة ليبيان كيبا يمدي قواري دي السودان ويسكالابتي قواري دي ليبيان لوريك جوي قوا اوكي صحراء مركا حدودك وحيالا برميل واوين برميل محل داورت ما تقانا برميل انا برميل بواقانا كلي برميل واوين بايالو او هالكاس بيكو اكتي السودان هالكانا وحدودك بغي في حدودك أنا مركن مربنا إن لقبته أسكر أبسط وبوين وحيدوني أسكرتي عدنا صولا بتين قبته مرة markaan liibiyaankii aragnay Suudaantii naga tagteen liibiyaankiina aragnay waxaan nidhi askartii Suudaan way isku kiin dhamaatay dambe indhay isku masaarays markan si nabadaba diibi ku soo gasheen alif mabruuk anigii gabadhii ilaa labadeeda ma iska fahmaynay oo labadeeda baa meesha laga qabto wixii cajaladii u duuban dadkana maadaama uga sheekayno waxayna leeyihiin hadda ma gudubteen meeshaas kama joogto ma annagay wax naga rabo anaga ku nidhi bas hadda waan gudubnay say nala tahay waa ka samar baadii liibiyaankii maadaama Suudaantiina tagtay xuduudkii waan soo dhaafnay ha cabsanina baan dadkii leenahay saas markii liibiyaankii noogu yimaadeen in gawaaridii liibiyaanka u wareegi rabnay bay saaxiibadii Shankaroon way xanuunsan jirtay way xanuunsataa yacni laba qof bay noqon jirtay way suuxdaa yani markay suuxdo jinni baa ku jira ilaa yaraanteedii jinni baa ku jira islaam baa hadda ka hor gashay ayadoo 6 jira wax saasa ma garanay markay naxdaba islaantaas baa ku soo kacday I don't know xaafadoodu xataa dadku way kala dardaarin jireen xiraan gabadheedu way xanuunsataa xanuunka ilaa 6 sano jir bi xanuunka ku qabtay ilaaliyo qof walba way kala dardaarmaan marka xaafadoodu anna maadaama gabadhan isa soo faanayn tireedan saxaraa ku soo jirnay waxaan sidii malaha yaa dad uga dhow lacala de xaaladaas ku dhacdo aniga baana ogday meelnaha kaga gabadhii markay liibiyaankii aragtay liibiyaanku marka waa aggressive maxaa lagu waa dad aad u af adag eraya maskaxdaad ku soo dhacaynin ayaasha ugu waaweyn ma aragteen bay dadka u adeegsadaan maxay haynin kor kii kale kii gabadhii markay caydii wixii markay maqashay liibiyaankii iyo jawigiis ma garanay way dhacday markay dhacday gaadhigaan waan korayaa hore baa la ii saaray ayada hoos taagan markii saa u dhacday aanu gaadhigii baan ka soo boodo iyada Shankaroonay kac yaan laga tagin kac baan leeyahay u ruruxaya qof kale bi isku bedeshay bay qofkana daba la hadlaya ka baxdana ka bax awayal ka bax xilli fiican ma inay bax waad soo qaldanteen camal almiyoona gabadhii la rafaadsan oo saa u luxluxay buu nin liibiyaan yimid maxaa ku dhaxay gabadha kii ninka ma liibiyaan kuma sax waxba fahmaya ninkii man ku yiri wallahi waqti mariida u ها مريضة والله تعبانة وحبان دوري أقول لي إنك ساور كني نسكي رفيع عمبو قاري بنانا بيقول قاري كرا أنت تقادي قبل ما قادي قري ما قادي قري إنك أنتوا يلا قادي بو قاري بنان ساري قاري تنتي المهم قاري جيبان الله بضي إذا بس كريا قاري بواحد مرة ورجينا الله بقف بس أيوة قبل كلو باص لا أيوة ناتي قطرقنا تساس ونانيس أقول ayuu ku yiri labadaa gabdhood gaadhiga saareen ordo kara 5 gabdhood ba xageega soo cararay aniga marka gabadhii kow saxaraa la igala soo celiyeen isna qaanay ubax iyo aniga iyo Shankaroon iyo 5 gabdhood baa waxaan ku koray gaadhigii banaana ee Shankaroon loo baneeyay anaga saa u raaxaysanayno wow na princess ma seexda ma jiibsada nasiibkayga anaga oo saa ugu balbalacsanayna booski ayay gaadhidii bixin 8 mise 9 gaadhi oo yar baan Toyota waan soconay Shankaroon wali sidii uu maqan tahay dhabteedii taa ku jiftaan waxaan leeyahay garoonay soo kac Shankaroon ay xuduudkii waan dhaafnay soo kac baan leeyahay anagoo sidii u soconno oo gabadhiiska ilaaway dhabteeda laakiin iskaga fadhido aan sheekay iska wato hayade maxay kii kale baa maqalay xabado horta xabadu meel dheer bay ahayd gabarna waa la yiraahdo ka timid Muqdisho oo xabadaha iyo waxaan oo dhan ba fahansan ayaa waxay tirinaa wuxuu wax xabado naabal jiibsada gaadhiga dul jiibsada gaadhiga lan saa dul jiibsana maxaa dhacay noo sheegnaa wax bada jiibsada bayna leedahay tirishadeeda marka anaga gaadhigayagu mid shaqeynaya muu ahayn gaadhigayga gaadhi baa ku xidhan oo waa la jiidayaa alaba ayay hal marun baa waxaan saas uman idhiyo daaqadu ma saa uga eegayo
darawal kan siri eeg bal wuxuu sameeyay maadaama gaadhigiis daajiyay waxa arkay isagoo intuu degay gaadhigi labadii gaadhi kala furaya intuu kala furay buu jaakadkiisa intuu iska saaray gaadhiga gashaday buu gaadhigi isagu uu nagu waday uu galowno carar aradun bisii annagii gaadhigayga kharaabka bas xaraab ku soo hadhnay sideedii gabdhoodii gaadhigi kharaabka aha dhigaya ma marka eri sheego niraado marka leeyahay u malaysaa inay si wallahi iska dhigdhig maya dadku isku lahjad ma waxaan wax u aqaanay dadkana wax kale u yaqaanaan marka waxaan isku dayaa inaan wixii sharaxo say wallahi ku cuntay wallahi a'uudu billahi mushtarij mideeda kale waxba nish dadkan qaybii hore soo daawanin halkan waxba kama fahmaysan ordo soo daawada saddex u fahantaa dad kale waxa jira luuqeynta la saadlini guudina ma adiga warqad qor waan qoray okay meesha anaga stress baan ugu hay wiilay iska shishadana way joogan qoshi gabdha kalena way la saadleen waxay guuraadeen annaga miyaan shankaroon kula qab kadib sharaxaad badan aniga qaldanaa oo ninka Liibiyaanka ilamo qaban shankaroon gabdha ii soo cararay oo ila qabtay ninka Liibiyaanka uu diiday wala sheekadalkayno ayadoo gaadhi kharaaba annagoo 8 gabdhoodana lagaga tagay oo ninkiiba halkaas ii cararay intuu naga tagay de aniga waan isku dhaxyaan hoogayo ba'ay hal nin inalama waa 8 gabdhood iyo gaadhi kharaaba saxarihi dhax bartamaan marayna allah annagu waxba ma fahansanin wanaga laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ashhadu ku walana gabadhan marka waxay nagu celcelinaysaa naajiibsada gaadhiga annaga soo saaran yani saa u jiibsada annaga yaabana xalaan maxaa u jiibsanaa maxaa weey waxaan qayladana waa xabadaan meel dheer ka soo maqlayna gabadhii markii dambe nagu tiri ka daadagay gaadhi ka daadago banaanka istaago gacanta saas dhaha yani gacmaha saas dhaha u sheegay yani inaan nahay annagu dad shacaboon qoriyana sidanin oo dad wada iska maray inaan nahay had fahmaan gaadhigii baan ka soo degnay saadan gaadhigii uga degnay ciidii jilbahayba noo gaadhaysaaba alla ba ayay socod ma jiro yaa dhaqaaqi karaba de isjiida gaadhigii ka fogaada gaadhigii baan intaan wana ka fogaada shankaroon wali waa sideedii anigii shankaroon baan jiiday shankaroon baa la ila jiido gaadhigii baan ka fogaanay gacantaan saanidhaana laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah annagu waxaan waleynaa mataqaanaan daacish ilaan markan suudaan waan ka soo baxnay aniga askar suudaana ku qabanaysa maskaxdayda kuma jirin waan yaabana waxaan leeyahay waxani waa xisoo nigi suudaan soo dhaaf bas waxaan sidoo waa ciddii baa meeshan ka celin karta mooyaane meeshan cid ka celin kartaa ma jiro anagu bas automatic ahaan waxaan sidoo waa ciddaas nabadi way isku kiin dhamaatay ee ashahaada si u fahmayna muslimiintii horta tasbiix iyo qul wallah iyo adkaaro dhan oo soo gabagabay niman baa waxaan ka aragnaa meel dheer nagu soo orday oo dhar ciid u eg xidhan waxaan kala xidhan way nagu soo ordaan annaguna waan si cararaa annagoo saali laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah shankaroon wali waa sideedii ma shankaroon baan kiciyaa ma naftayda la cararaa aniga saacadday igu wareegtay almuhim nimankii soo orday ba xagayga soo qaylo baa horta nala soo galay xagee u socoteen yaayni waday dadkii kala aaway annaga dadkii kale maxaa naga gal muuna u jeedin ninkii inaan annagu bas sasannahoon gabdho kaliya nahay ninkii markii dambe wuxuu nagu istajiya waxba xaqiiqaylina muslimiin baa tiin soo maaha annaguna muslimiin baan nahay agteeda amaan baa ku tiin amaan aan ku ahaana yaa tihiin maxaad noo qabateen ninka kana guud anagu askartii jeeshka suudaan baan nahay allahoogay oo suudaan soo naga soo dhaa halka maxaa ka qabanaysaa marka gabdho aad u oynayo xaaladdu aad ugu xumayd oo la aaminsiin kari waayay baa nala sii gabdhihii buu aamusiyey wuxuu ku yiri anagu waxba inaguma samaynayno gabdhaha tiin aan idinkuna muslimiin baa tiin anaguna muslimiin baan nahay wax xun ha naga filanina isdejiya gabdhihii baa la sasa shangaro markii soo kacday bal booska shangaroon isgeliyo ilaaba nagu dhaashay idinkoo liibi u socda oo aliin leeyahay haddaad sacara cilaa adigiista todoba gabdhood saa u soo istaagtay bal maxaad isdhiila gabadhii yaab waaga u bari maxaa dhahay annaga miskiintii yarayda waa kaasaa sas bay ku waala naa bal haddana ha igu soo xinay isdeji annaga ku fahansiinayna gabadhii waa u sharaxnay saasaa nagu dhacday oo saasaa dhacday gabadhii weli way aamini laadaay miskiin dee bes iska aamustay iyadoo yaaban nimankii wayna kaxeeyeen waxaan igu dhahdeen na soo dabayaaca waan soconay ciidda lama dhex socon dhaxaanta dhaxayso dhaxan noocaas weligii bay ma soo nimankii baan daba soconay alla nimanku waxay leeyihiin guryo caadi maaha dee shiraacayaa u dhisan oo dee askarta jeeshka saxara meeshooday markaana geynay waxaan igu dhahay ma socon kartaan mise waxaan keenaa gaadhi aan inagu qaad meeshu saa uma sii fog anagu waxbaba waan hadli weyne miyaa mooyi socodkii ma iska sii wadnay saa u soconay waxayna geeyeen xeradu markaas la saxariyon bay ku taalaad taandhooyin baa saa u dhidhisan mise taandho malaha kumanaan taandhaa ku dhisnaa
oo korontay leeyihiin oo biyay leeyihiin oo maxay bay leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim dadka saxaraha askarta saxaraha waa cajiib walaa meel taandhaabay markaa anaga noo baneeyay waxaynu guulaadeen waxaan la hadlaynaa deedeeda askarta caadiga gaari baa laynii soo diray waa laynii qaadaya oo waxaa laynigu celinayaa magaaladii Khartoum laakiin waqti bay qaadanaysaa waa inaad halkan aan joogno nala joogtaa 8 gabdhood kumanaan askara see loola joogi annaga cabsideeda bas way in xumaynayaan dadkani waxay rabaan bay naga yeelayaan xaaladeeda ilaahay un baa ogaa nimankii markiiba cuntay noo keeneen waxay noo keeneen saabuun caday waxyaabo u baahanaa emergency waqtiga ayaa qubaysan kara boodhka dhaska uskaga waa nafsi shay doorkii hore oo kale laakiin markan waa qabo ma meedhanayaan uskageygana waan iska haysanayaan meedhanayaan nimanaan ka cabsanna un badmeedhanaa isku qurxinaa no dhaskayga waan iska qabay uskagayga weliba ilaahay umaan ura markaa way iga fogaanayaan dee waasaan aaminsanaynun askartu waa askar amniga sugaysa ilaan waxba yaa laakiin annagu maanan aaminsan waxaan waan ka cabsanaynay saasba dee gabdhahan nahay sooma meeshiiba waxaana lagu hayay 2 cishaan u maleeyaa 3 habeen iyo 2 maalin habeenibadii waxaana loo soo diray gaadhigaasaana lagu qaaday waan soconay gaadhiga laakiin markan bustana waana loogu dulgoglay barkimana saasaana loogu saarsaaray busta kalan huunana waana lasii iska dul seexday waana lagu dhacaa oo dhan waan soconayna hadda marka waxaan aaminay inay dadkani dee caadi yihiin oo aanan xumaynaynin oo dee isqajaanimadaas inaynan jirin haddii kale leen askarta magacooga xumaanay dee waan soconay waagi markuu bariyay baa xero kaloo askari leedahay nala geeyay hadda kuwaasana loo gudbiyay kuwii way iska soo laabay kuwaasana haddana waxaan la joognay habeen kuwii baa nagu yidhi haddana askar kalaan inii geynaynaa kuwaasa magaalada inii sii geynaya yani waa laysku keengu gudbinaya idinku hadalaya dhammaan sidiina loo waday waxaana la geeyey magaaladii dungula ahayd anigii ubaxintan saa isku eegnay ayaan nidhi halkee talo naloo wadaa ilaa meeshan waan soo marree waxaan ku fikiraysaa baan isnidhi hal mar allah haddana talo maxkamaddii baa nala geynaya malahana lama geynaye annagu markaan aragnayba inay yani meesha naloo wada iyo wixii ilaan sanad ka hor baan meesha soo marree sanad maa idinku ilaa 8 bilood 7 bilood ka hor baan soo marree waan fahnay dee inay nafsil mawduuc tahay almuhim sidii naloo waday waxaana la geeyey maxkamadii exact berigii aan 800 ahayn iyo ka badan baday idinku waad fahanteen dee waqtigan ka baaba nala geeyey alla markan waxbaan fahansanahay 15 jir baan ahay iska soo jaray doorkii horaana lagu yiri Soomaa hadda 8 jir dadka yartii wadankiina niini celinaya haddii kalena sharcigaad mar horta sheekan ka soo tagay intii markaan naloo soo waday magaalada baa waxaana la seexiyay guri habeen bay ahayd guri ma ahay adigu xabsina adigu gurina ma ahayn xabsina ma ahayn waxna lagu yiri halkan seexda aroortaad baxaysaa waa xero dawladeed meesha markaa sariirahaas ay isku saarsaarna waxna lagu yiri sariiraan ku dul seexda habeenkii waan seexan aroortii markaan soo toos eedana lagu yiri ka caawad baxaysaa ba gabadha la socday diraceedii oo googo'an ma googo'anayn xataa caadi buu go'naa dircu waa ka dheere ilaa lagu hagaadha waxay la soo kacday dirac xaafa oo saas waliba loo jaray sidii fanaanada camal dirac fanaanada bay la soo kacday aroortii walaal dirac maxaa saa kaaga gal jiir ma noqon karo jiirku dirac saas u jarjaraa kan laakiin fanaanad isku bedelay wixii walaal deeqa layd maxaa dirac saatiri wallahi billahi ma garanayo un baytay walaal maxay baad kacdo diraca jarjartay maya wallahi aan waxba ma jarin diraci surwaal ba ka soo xidhnay toma shaari surwaal baa u soo haray gabadhii halkay dirac ka xidhnay dirac ma wallahi gabadhi way noo dhaar ilaa alaankaas oo isweydiinaa markaan isla hadlayno maxaa dirac habeenkaas ay yiri gabadhiina way dhaaratay magac walba way noogu dhaaratay wali iyo biliyataleyn aan diraca anigu far aan lay waa isla seexanay gormaanka ilaa hadda waan isweydiinaya waxa diracasaa oo jiir horta maba noqon karaba sababtoo ah jiirku dee si waxiraan wada naqaan laakiin dirac fanaanad isku bedelay almuhim anigu markaan nidhi 8 jir baan gabdhihiina u sheegno u digno ku nidhi meesha ma aragteen 8 jir ka yar haddaad sheegataan waxaad yeesheen anagu inama yeeli gabdhi waxaan ku heshiinay inaan 8 jir ka yar wada sheegano 15 16 14 dee qorta waa tii noogu gaabnayd oo noogu yarayd oo xabiis ka soo jirtay 12 jir baan 12 jir horta waa too much wallahi way yeelay dee 18 jir ka yar uma dhamaanteen wada sheeganay dee markan hablaha waan uga dignay Soomaa oo waxaan ku nidhi 18 jir ka yar oo sheegtaa dadka badan sheegataan idinka istilay gabdhi haye baan ku heshiinay tu va bien bas anigii ubax bay isku soo jeedsanay waxaan isku nidhinaa ubaxay walaal qeyrkeen waxa ka nool wixii muxuu ahaa dhiman jir waad u jeedaa inuu tahriib waqtigii naga dhamaaday oo waa kaas sanad ban Suudaan dhex warwareegaynaa Liibiya xataa maanaan aadin
wadankii baan u laabanaynaa markan oo de mar haddaan 18 jir ka yar sheegano waana la tarxiilayaa inkastoo safaaradna qaadi lahayd meesha jir bas anigii waxaan ku shimeynaan markan iska laabano waan iska qoslaynaa dhaqdaan guraynaa nagama waqasnaba maxkamadii baan la geeyay maxkamadii marka gabdhaha dad waxa jiray in carabiga si fiican u yaqaana anigii shankaroon iyo dadkaas carabi waan naqaan dadka kale laakiin carabi akhi bas biki memba akhi kelmad dadan carabi ka aqoon la socday bas qaadigii wuxuu rabo noo sheegay wuxuu nagu yiri intii 18 jirka ka yar waxa la nigeynayaa meel magareshna da idinka la ni tarxiilayaa okay anagu waa miska sii ogeynba laakiin umbu laba idinka kamid ah xabsiga galaya oo labad maxaa weeye xamdi hebel umbu yiri iyo xabsi hebel oo xabsi maxaad kala doonaysaan waa ka yiri ninkii 18 jir way ka weyn yihiin saagnow 18 jir kama weyno maan ku hore ninka waa kaas tan 16 jir weeyaan tan 13 jir weeyaan ma waxay yiraahdeen 19 jir iyo waxay sheegteen 20 naagii ma ku soo laabanayna maxaad sheegteen ma wa garanayno waxaan sheegnay xamdi doorta waxay tiri 20 maana ahayn 16 naama 20 baa 16 xabsadii waan ku raadna maxaa tiri 19 oo maxay ka dhigantay 19 tee 13 maaha hooga yooba ayay naama lambaradaad garan weydeen intaan wada hadlaynay bana lama sugin gabdhiin baa lagu yiri soo baxa idinkana gaari kalaynay ma kala hadhayno baan ku nidhi halkeed noo kala wadaan anaga waqti aan isku fahnaba namaysiin anaga gabdha ma la hadlaynaa oo ma macanaananay askar baabana daba taagan haye soo baxa iyagii waa la xidhxidhayaaba waryaa ilaahay yaqaanadee anigii shankaroon carabiga naqaanay ninkii baan daba cararaa wallahi kuwan carabi ma yaqaanaan 20 iyo 19 way ku qaldameen saas kama wada dhagahan buu jaf iska siiyay ninkii alla hoognayo baan gabdhii waa la sii wadaya qalbiyeesha garoonay u bacay day hayaan gabdhii annaga waxaan ku nidhoon annaga anbana wada xidha anbana wada fasaxa meel kuma kala hadhayno ilaa 8 gabdhood oo soo wada jabaanahe anba nolol anba geeri wax ka dhacaysa de ninkii qaadigii baan la hadalon ku nidhi annagu meel kuma kala hadhayno haddaan xidhiisina wada xidh haddaan sii daynaysidna sii wuxuu yiri dinka sharciini ma qabanayo laakiin kuwan sharcigu uu qabanaya waxaan inii tari karo maba jirtaba annaga nidhi meesh kama wada dhaqaaqaynaba damina dilayaan intay qabtaan minito tooganayaan waa maya abti meeshii waa uu fadhiisanayba bala hadday timaadana meesha naga kicin mayso askarigii soo celiyay labadii gabdhood sii wad wuxuu yiri maxaad rabtaan aniga ba idinka la inii soo dir waxaan ku nidhi anbana wada xidh anbana wada fasax anigu 8 gabdhood waxaan soo wada jabay aakhiri adduun anagu meel ku kala hadhimayno wuxuu yiri hadda xabsi wad u galaysaan gabdhaha daraadeed waan galayna xabsi wad jeeday jahannama xataa waan u raacayna inkastoo iska jeclaan lahayn inaad wada fasaxdid ninkii wuxuu yiri hadda xabsi dad rabtaan anigu waan nigu darayay raaca na raaci laakiin gabdhihii juufuuq uma naan dhihin erey markay soo qaadaan iga xidh afkaaga ha ila sheekaysan aniga ha ila sheekaysan gabdhihii afku mangoysanayay erey markay soo dalacaan teeba sidii naloo waday xabsigii aan horay u galay anigii oo wax badalkii ma meel kala aan xabsigii markaan saaw arkay ilaa askartu wajigayga way wada yaqaanaan anigii oo baxday saasum baan idhi taas baa lagu dhumanaya indhahaygay garteen askartu wallaahi lacadiim indhahaygay garteen adigu iska qaad waxan biigu askari no gabadh bay ahayd iska qaad biigu tiri anigu iska qaad intii biigu tiri oo maxamar la liibiya ku geeyay jawaab baan hayaatay waxba ma fahmaysay soodigii ku lahaa wadankaygan ku laabanaya ileen hadda ka hor baan ku dhii jiray anigu tahriib iyo waxaan waba aqooninay saas oo sheekaysan jirnay markaa gabadha teema waxaan u sharaxi karaa in la idhacayo oo halka aaday halka ka sii baxo oskaamsan gabadhii way yaabtay oo laa ilaaha illa allah mid caadi ah la natiid xabsigii waxaan la siiyay caday waxyaabaha asaasiga ee muhiimka waan galay kal caad xabsiga sidii bil baan lagu xukumay markana lacag iska maanaan bixin sababtoo waan ognayna xabsi kala sii galayno xabsiga waxaan ugu tagnay hadda ka hor intii aan ku wada jiray baan ugu tagnay xabsigaas marka dadkani waa dad Suudaaniyiin oo balaayo lagu soo qabtay qaar daraagis maxay qaar baa iskaga xukunaa 10 sano 15 sano oo 8 sano dadkii baan ugu alla heblaaya seed tahay ma fiican tahay kii kale kana almuhiim bishii saasay noogu dhamaatay markan caadi ahaanta waa in la geeyo xabsiga ku yaala Khartoum ee kii migration-ka ahaa xabsigii dadka safaarado xabsigii safaarado iska leeyihiin kii berigii hay'adu noogu timid ay naga qaaday bay ahayd caadi ahaanta in la geeyo anagu waan iska ognahay markaan anagu maadaama iska ognahay in safaarad Soomaali meesha ka jirin oo xabsiga iskaga sii jiraysid nasiibkaaga dhahayd ku timaadan ku qaaday soo sheekara dib kuugu celinaysa hay'adii
جوجوا أوكي أهم شيء وح وقوم يمسن إن أنك لما أنا وقفية وركيسية دعيتان كيسي حديديسية دجال كيسة أنا وجوجو نود جاي هاي قاركول له إني وحنا سمي سنة يا إقامة يرا واحد شرتا ضد كده أدير بالله سمي يايو خرطوم بيسكت حجوك شوجا قاركول تسكلا أنا السودان مسكت شوجا يايو شقي سنة أنا جي أبح حان لنا وضن كيبان كلها بنينا وحول برد عب حافظي الله الله يا تكتا إيش شرا وضن كيبان كلها بنينا يعني كأن كيو كاسوها وبحث ذا كلا إلمد gabdhahan markaa shankaroon iyo xabsiya dadkan kala xarabeen inay dib u sii raadsadaan mukhallis ay liibiya ugu sii laabtaan mar labaad iyaga mar labaad bay u tahay ugu xunbay mar saddexaad noo tahay annagoo sidii ku heshiinay bishii baan noo dhamaatay xabsigii baan ka baxnay waxir suga xabsigii markaan saa uga baxnay doorkii hore annaga gaari wey baa noo yimiday ay ku qoran tahay calanka Suudaan ku sawiran yahay oo gaariga xabsiga de inuu yahay de ku qoran wax dawlad inuu yahay waan ogeyn Soomaa doorkan waxa noo yimiday gaari caadiya gaariga shacabka caadiga baa noo yimiday wuu naqaaday waaba gaari iska caadiya de gaarigan caadiga la wato oo laakiin 8 qof loogu tala galay wax ka badan gaarigu uu weynaa anu waan shakiyay waxaan siri waxani waa gaari shacabe aawiga gaarigi dawladda anagu maxaabisiin baan ilaan xabs kala noo wadaa gaarigan maxaa ka qaldan ninku wuxuu igu yiri maaya maxay nadam 8 qof tihiin doorkii hore waad badnaydeen buu gaarigaasi iniigu yimiday laakiin kan maxay ahayd 8 gabdhood gaariga waxba looma qaadayo la taala un biigu ninki okay waa yani kalaam mantiqi sax waa hadal macquul gal aqli gal ah okay waa laga yaabaa maybe sax ila qaydo markaan dhaxda ku sii jirnay magaalada aanan wali ka sii bixin oo wali sii socon bay shankaroon shakiday waxay tiri gaarigan anigu kuma qanacsani qalbiga waxaad sheegaysid armoorun yahay oo de waxba qaldan bay tiri aniguna baan ku yiri joogu caadi iimaha ma garanay si baan u diidanahay gaarigan nala soo saaray baan ku yiri hal nin baan nala saarna hal nin dad maxbuusiin oo darawalku bas wada halkeed ku aragteen idinku ninkii waxaan aragnay message qoraya ilaa uu arkayna carabi ku hadla telefoon kuma hadli kare message buu qoraa una soo eega muddo galeen ninku sibu stressninka u haysto wajigiisu sibu ninku muu deganeen anagu waan fahnay qof walwalsan ninkii ma ku niri gaariga barta taagan tahay noogu jooji baan ku niri maxaa idin ku dhacay buu waxna u dhacay garan mayna gaariga jooji gaarigii buu joojiyay wax iska dhigay inuu jawigu okay maxaa inagu dhacay waan istaag maxaa waxaan ku niri halkeed noo wadaa waxaan ni wadaa meesha lagu yiri waa hagee maanay umbuy ha istaag adeer istaag xabsigaad naga keentay ma nagu celin mise bartaas inaan ku daadagna suuqa u galaa maya istajiyo waan celinaya iguma kalsoonidin miya maxaa nagu dhacay bas waan celinaya bas istajiyo waan celinaya naceli u baan ku niri xabsigii dib noogu celiyay marka xabsigii kamaanaan soo fogaaninba xabsigii markuu dib noogu celiyay xafiiskii baan galay mudiirkii baa nagu yiri maxaa ini haya waxaan ku yiri muxuu noogu iman waayay gaariga weyni gaarigii dadka qaadi jiray dawladeed muxuu noo qaadi waayay ninkan shacabka anaga noo wada وكيلو ده إذن كنا وديرتي نفس الشيء وحيدون إن سدوا يدروا الكنا ولا إذن تدير باتين ده محا إن قارون لقى كنا يا لا أمبي أنا قوم كنا مرة عينه حنلوف أبو وجهي إسكاقب يقول إيش بلاي فكر ورمون وبقيها شبيبة وأسكري أسكري نك أنا مدير كده معي حبس يوي وبقيها شبيبة وكيلون إم كذا هذا نك راعي ويدان حبس جن ساسا دعيو طبعا صاني وحكومة يا أنا وحوين بأنا قلدن وأنا هم يا هنا وحكومة ده سنة وراعينا بس كنيري قاري بدي بقول لابنا نينكي هنا وضعون وحنا نقول أنا هالكمان نيجا لابنا يا قاري كلا إني ما نوين قاضية قاري كلا سونا قاضية سودي نقول أنا قاعد نجيني حبسي مigration كي خرطوم حد قاري كلا نقول دونيسا ما أنت دورك كبحثان بقول أنا شقة ذي تاسيكو إكتهي هو يتمرتني بسكت كني عبتان ذنو إن حيد قاري كلا إني إيمانية oo kaas ay qaadayo khartoon geynaya taa anagu sidii u yaaban timirtii wixii markaan ka qaadaneen cunna gaarigu sheegay baa markaan noo yimid gaarigi bana loo wareejiyay anaga iska socon gaarigi kalena hana wado allan aniga waxaan naqaanaa masaafada dungliya khartoon u dhaxaysa 2 saac 3 saac bay hayde kan 5 saac 6 saac buu waday war hana wado markaas waxaan soo aragnay leyd iftiin meel dheer ka soo iftiimayaan aragnay mugdina ma ahayd بس بان أنا قم بسوالنا كاسرين كررم بخرطون نو كان إفتين كاسوي خرطون إفتين كي ما كان سا وقصور دواني أبو إيه أتوندي لا ميجوا كان سامها هل مربو لا ميدي ترى أو يسسي داي
markay yara xawaare iska caadi oo dee wadada loogu talagalay buu ku socday markan isagoo laameydii ka degay wuxuu u waday xawaarihii ugu dambeeyay annagii waan yaabno waxaan nidhi ninku ku laameyd uga degay muxuu saa ugu wadaa war hana dilin gaadhigu markaa korku ka banaanaa waa kuwan qabaalka gawaadhida qabaalka Toyota intaan la wareejina ninba korka noola soo saaray annagu ismaanaan weydiino isma dhihin ninkan muxuu korka xajina muxuu u fadhiyaa oo shirka u galay ismaanaan dhihin miyaana la sixray ma timirtii iyo biyihii wuxuu nasiibay bala la socotay ma fahmin marka annagu iswalwaaleen nidhi war tartiib dhinku markaan bilownay oo ninkii qori la soo baxay aamusa fadhiista alla bay waan fahanay taanagu waan fahanay inaan la dhacay uu askarigiina iibsaday waan fahanay laakiin mid baan uga shakinay inuu askarigu isaguna iibsaday xabsiga muddadii aan ku jirnay wiilal Soomaali ah oo jaamacadda ka dhigan jiray meeshaas baan soo booqan jiray oo maalinba anagoo iska fadhfadhino iska sheekaysanno inta iska shashalaysanayn nalagu yiri qof visit baa inay yimid martiba qof baa in soo booqday anagoo yaaban oo la yaana soo booqday ya Suudaan noo jooga anagoo leh baan diraci iyo wixii inta iska bedelay cabaayadii aan wadanay iyo waxaas inta xirnay baa baxnay waa laba wiilo Soomaali ah waxayna guulaadeen waxa maqalay inaan xabsigan ku jirtaan oo askari xabsiga ka shaqeeya baa maxay hayday ii sheegay inay gabdha Soomaali meeshan ku xiran yihiin oo saas darteed baa u nimid dayr Soomaali baa isla nahayo yaa annaga farxadii baa naga dhamaad waa bidii xabsiga ku jiraya cuntooyinka Suudaan ugu macmacaan oo dhan fruitka waxaas oo dhan bay noo keeni jireen oo isbuuciiba laba jeer bay soo booqan jireen wiilashaas annagoo la wiilashu fiicana oo qurqurux badanaya oo iskaga dakhran ba wiilashi ay wiilashooda kale iska arag nooga sheekeen noloshooda qof walba wuxuu barto anigu maxay baan bartaan kii kale Suudaan inta san joogay Suudaan waa wadankeygii labaad oo de faami caadi bay noo ahayn dadkaas laakiin bar walba inagu dhigi jireen ma ku fikirtaan in Liibiya ku laabataan Liibiya imka sidii hore way ka fiican tahay ma ogtihiin in askartii wixii way ka dhamaateen oo maxay kii kale bay neeydaan markaan sheekaysanayno conversation caadiga marka waxaan niri laga yaabaa inaan ku gafeeyanaya waxaan isniri inay kuwiina iibsadeen sababtoo ah mar walba waxay nooga shaqeyn jireen Liibiya armay iyaguna iibsadeen baan isdhaha mararka qaar ay inta u tageen ninkii mudiirka xabsiga iska lahaa ku yiraahdeen waa kaasa gabdhahani waa Soomaali oo tahriib bay rabaan oo ma rabaan meelahan iyo waqti dayacan uma jeeda sheekada baa arma u fudaydinaa oo yaa maan gadano inta heshin ma garanayo saas isiraadee baa isniri anagu ma garanayna de kuma gafeeyna المهم gaarigii uu waday anagu suuqii wali waan u jeednaa iftiinkii wallahi dharka waxaas dhan waan u jeednaa hal marba waxa ku soo dhacday fikrad waali ah magaaladii baan u jeednaa kaale gaariga iska ridnay kula gaari iska tuura walaal waxa waali gaariga xawaarahan oo hay u socday iska tuura la isla maqlaya nayna mari gaariga iska ridnaa soo bax annaguna wali hay iyo mayaba isdhi bay gabadhiisay u socotay gaariga iska tuurtay alla ba ayay u baanidi ubax ma noola ubax bis khalaas saas bay way burburtay sababtoo gaarigu nooc u socday iniga ma sheekeyn kara 180 nooc hatta 180 ma 180 kamka oo 180 waa ka nooc ugu sareeyay laakiin meesh saxaray ahayd oo girgigi iyo xas ma lahayn waa ciid ubax gaarigi ma iska tuurtay anagu ba oginaa wixii ku dhacay wixii ka dambeeyay ma ogin ninku de 8 gabdhood bay ahaayeen xabad iska tuurtay mi isku galaafanaya suuqii buu u jeedaayay iska daayay gaariga uu si socdo markaan aragnay inaynan ubax ka daba tagin inaan iyada u istaagin anaguna waxaan isnirahan istuuro waxa iska daba tuurtay oo xamdi ninkin tusaaw eegon bu gaarigiisa hadan iska sii watay uu wada uu ba istaagin xamdi ubax midna buu mu istaagay 6 gabdhood ba gaarigii ka soo hadhay suu gaariga u socday bay hadana nawaal iska daba tuurtay nawaal markaa ay tiri anu ma rabin aan gaariga iska tuuro waan si waabinayo ninka uu ku waabsan isla kula wata waan saas kula aan bu gaariga hal mar iigu baneeyay iyadu inay istuurta bay rabin almiim sida 3 gabdhood bay gaarigii kaga bood anigu inaan boodo raba shankaroon waxay igu noqotay xanjo adigiiba kaale iska furfur qalbiga waa dhimanaysa qalbi na isida mansture xaraan waybe haddaad adigu iska tuurtid anna haddaan kula socdo waa haddaan isla soconno aniga intii naftii halka iigu aruurtay ayaan waxa u dilayaa shankaroon sidii adduun igama bafuqaysa 3 gabdhood way booday hal mar bay xabsana ka daba booday alla laakiin xabsa si xun u booday laa ilaaha illa allah muhammad rasuul alla xabsa maskaxda ma aragteen maskaxda ay dhulka ugu dhufsatay
qof sidii dabaal galay oo kale isoo booday may waalantahay wallahi xabsasan uga naxay maskaxdu way bis khalas ma noola un bani siriyaan afar gabdhood markuu arkay inay boodeen ayuu ku yiri gaadhiga jooji aleen afar dhan waa khasaaro weeyaane ninkii baa istaagay gaadhigii buu saa u soo kala wareejiyay dan siduu u socdo dee laa ilaaha illallah ma tag baa ku qabanaya haba baxsadaanba iyagu naftooda hadday shil galaan soo iyaguna lama socdo horta dadku may aqli lahayn waa mugdi maaha saddexdii gabdhood ee horey u booday iyagu way carareen xabsa laakiin kici weyday xabsa markaa muu arkayn jaakeed waxay qabtay ciidda u eeg muu arkayn markuu intan usoo jirsaday iyadu saas u jirtaa soma intan markuu usoo jirsaday ayuu gaadhigiisa u istaagay allah annaga dhan saasaan noqonay markuu breega qabtay dee annagii qayb baan saa ugu aruuray bes baan isiri xabsa uu jeeday gaadhigu xabsa way kici weyday maba jooginba aqli miyirkeedu maqan yahay xabsa ilaahay wuxuu ku badbaadiyey 2 seconds ayuu ku badbaadiyey darawalku haduunan darawal xariifa ahayn uu jeedi lahaa waaga xabsa soo qaaday gaadhigaygu soo saaray xabsan ku nidha xabsa see tahay ma fiican tahay 79 gabaray markaa iyada kow isla soo tahriibeen oo 79 la dhaho magaceeda caadiga de mooye magaceeda caadiga istaahil baa la dhahaa oo 79 kun mahmahdeedu waa 79 markaa iyada 79 tan waxaan kaga nimidnay xeradii maxamedtiin xabsadani markaa beesti ahaayeen gabadhii un bay kaga dhigtay 79 away 79 ora hooyo waa iska tara inay qardho joogtay u malaysaa naa xabsa saxaraad joogtay aniga ila hadal 79 iga daayo aniga qalbi weey casheeya wariya ilaahay yaqaanadee waa kaas gabadhii anteenada ka tagtay it's not funny gabdhii kala la doonay gabdhii kala orod ubax fariid weeyaan ubax ee shaydaamad geed bay kortay marka saxaro caadi ma ahane waa bilowga saxaraha meelaha ma aragtay geedkii xoogaa yar geedo iska jirjirinaya dhagaxaan saxari saxda ah ma geed bay kortay waana mugdi maaha cidi ma arkayso maadaama ay dhuuban tahay deeradada markii way kortay xamdi horta markasta maxaa ka qaldan xamdi malaa rafaadka badan baa wuxuu dhimay baan isiri annaga dhan ma fayoobin kullee waxa iska daba kortay un ubax ninkii u jeeday ubaxay iqabo leedahay ninku hadda ubax magu arkinba ubax way badbaadi lahayd xamdi ba naa ubaxay iqabade gacanta bay ka daba leedahay ubaxna waxay ku leedahay hooyada naa iga hadho meelaha u carar iga ka ninkay tusaysa anagu gaadhigii way kusoo degnaa isku daawanayna dadka dee way eebaysay ninkii wuu arkay ubaxna soo deg buu ku yiri ubaxo badii la qal dhiig ka imanaynin baa iska soo degtay xamdi bay cayda doqoyahay ninka halkaad ii tustay sababtaada halkan u joogaa waa badbaadi lahaa albiib nawaalna waa la soo qabtay dee ninka ku yiri gaadhiga kor wallaahi ma koray gaadhiga ubax waxay kaga dhigteen wallaahi laydhkii baan u jeedaa maano laydhkii u jeedo magaalada inta ii jirtaa lay xadayaa no ma koraya anagu hooyaday haysa ninkii baa Soomaali ku caayaysa ma soo u fahmay qori markuu saa halka uga qabtay ayay tiri wallaahi waan korayaa wallaahi way iska kartay gabdhii kalena waa la soo saaray gabdhaha kale way caafimaad ma jiro yani jugtaas kulli waa mid ku maqanuun laakiin de nabar la dareemaya iyagoo wali ma ka hayno xabso weeyaan dad anteenaduba caadi uga tagtay laba cisho magaceeda u sheegaynay aan kulayn xabsa lagu yiraahdaa waxaad ka timid ay qardho ee waa kaasa intaas ciyaal la dhalatay ma jirto saaxiibtay intay soo aray kula wallahi biseexan sida sheekada wad okay xabid kale nigu daray dee nimankiisay noo wadeen waxay noo geeyeen group kalo elitariana oo hal nin oo Soomaali la socdo dee waanaga carcararnay aawi Soomaali alla nin Soomaali waxa noogu dambeysay bilka hore sideedeeda isdaashaday waxaan daaskaga noorsanaa rabna dee waxana lagu yiri nin Soomaali ba meesha joogay orda ugu taga ninkii ba u tagnay waanaga ku cararnay ku dhegdhegnay ninkii Islaameed xariifkan alla mid tahriibay maaha asagana waa la soo dhacay tahriib ma yaqaanaba sab Suudaan buu ka shaqeynayay jawigiis okay buu ahaa habeen isagoo shaqadiisa ka soo baxay oo gurigiis u soo socdo alaabtiisa iyo computerkiisa wixiisa iska sita baa meel ninku ma aaminayaba in la soo afduubtay war waa lagu soo afduubtay meeshan waa laga tahriibaa anagu tahriibayaal baan ninkii waxay kaga dhigtay aniga maya aniga waxa la igu yiri hadda laabanaysaa shaqeer baad noo soo qabanaysaa waan ku celinaynaa isku shaqeynaa sheegay inay meelaha wadahay ninkii waan ka dhaadhici weynay in la soo afduubso oo meesha Liibiya loo socdo wiilkii yaab oo hadda idinku Liibiya u socotaan waxay sidan aad u eegtiin wiilkuuban uuba naga wiswisayaa waxay rafaadkan inaga muuqdo walaal maxaa la cawlantiin dooyaysa
isagu wuxuu ahaa nin u dhalaalayo waxaan ku korkiisa laga sukanayo asaga dhan weli yaaliba rafaad arkin Suudaan ku raaxaysanayay buu waru baan ku niraan ugu meesha waxaan ku waan soo jabno soo googono soo gubanay haddana naarkiisa xabsi baan ka soo baxnay waana nala soo afduubtay aaminaday oo lagu afduubtay Liibiya socota Liibiya isku diyaar ninka wuxuu taagan Liibiya maxay iga yaal Liibiya maxaa la qabtaa meeshii markaan habeenkii seexanay waagiina nagu bari habeenka balkii kala noogu dhac ayuu yiri walaa waxaad sheegaysaa waa baro inta isagu wuxuu ku noqonayaa ku Suudaanta wuxuu leeyahay goormaad celinaysaa Suudaantiina iyagu ma oga qaar kala soo dhacay waa laga soo iibiyay halkee lagu celinayaa un balagu tee anigu istahriib iyo waxa mar yaa ku weydiistay inaad rabtay in kala horta wiilkii markuu arkayna xaaladda xunta uu iska aqbalay tee had 8 gabdhood iyo hal wiil baan nahay oo Soomaaliya wiilka waxa la dhigi jiray 8 gabdhood walaalkeen buu wiilku iska waa walaalkeen baadiyaan hadaba wiil Soomaaliyeed kaba si darantii qof ka fiican adduunka Ilaahay ima soo marin wiilkaas waxa la yaado meelaha niga daawanayo walaal waan ku salaamay wiiligi yaa Allah kuma ilaaway wallahi walaalkii hooyaday dhashay baa tahay meeshii baa almuhiimna lagu hayay dad baa la isla sugayaa Eleen dad badan baa la keenaa Soomaali badan baa la keenaa birina waa la keenaa saada meesha waa saxaraya banaanka la seexda ciida dhexdeeda dhaxanta dhacaysa bishii koobaad mise bishii labaad garan maayo dhaxanta adoo sa u taagan bad baraf noqonaysa dabban iska shidanaa nimanka Suudaanta waxay noo keenaan sonkor iyo caleen iyo shaax baan ku celcelinaa habeenka dhan saan shaax ugu celcelinayno waagu noo bariya dabkaana u diirsanay aroortii marka cadceed markii soo yara baxdo baan seexanaa meeshii malaha usbuuc markaan joogno yaana laga daba keenay ma taqaanaan dadkii xeradii maxamatiinaan uga soo tagnay qaarkoogii lacagta laga waayay bana laga daba keenay alla wanaga isku dhegdhegnaa heedna idinku soo dinkii mar hore naga soo alla wanaga jabkayga uga sheekayna in saxaraan laga celiyo anagoo 8 gabdhood oo xabsi soo maray oo nala soo sheekadu filin caadi isku bid cidina aamini mayso na idinku 2 bilood ka hor bad naga soo tagteen anagu waxaan islaan Yurub kale waxay meeshan fadhidaan taa markaas aan sheegnay inuu jabkaasi nagu dhacayo oo soo gubanay oo Maxamediinba janna aha aniga saaxiibadeedii la iga daba keenay Maxamediin la iga reebay shankaroon miyaan ka hadhay waa maya waa bas sii jeclaanay saddex baan noqonay jawiga kale iska arag markiiba Soomaali badan baa la keenay dad bal isku soo ururiyay Eritrean adduun dad xataa waxa la igu keenay meeshaas Ethiopia ka yimiday oo Ethiopia isku naqaanay na qalbiyay soodigi mar hore adigu soo tagay adu goorta soo tagtay meeyadaba dhaweeda maxaa meeshan ku dhigay waxa meeshan ugu nimid dadkii baan ka daba geeyay oo ku waraan jabkaas ay u dhacay walba la igu haystay oo tama jiro xabsiga alla waa filin caadi haddana Liibiya naloo diray waa markii saddexaad anoo rabin anigii ugu xumay markii saddexaad noo tahay 60 gabdhood waa markii labaad bay u tahay kuwan kale hadda cusub ee la keenayna waa markii ugu horeysay saxaraan uga sheekayna aniga markan Liibiya galaysaa iguma jirtaba bas 100% waxaan hubay in mar saddexaad la soo qabanayo kuma fikirin baan ugu Liibiya nabad ku galaysaa war Liibiyadii baa Yurub in noqotay anigoo la niyow naga badaayaba waxaan Liibiyadii baba noo macaanaatay bay waxaan Ilaahay wala isoo qabtaaba markan ma barraba tahriib ma barraba khalaas experience waan ka dhargay noloshu way idaashatay khalaas waxaan taaganahay anigoo nololka quustay ومن نقول عاود بحيث استيارية نفس الشيء وحنا لو كان عباية واستيارني ليبيا وبحنا سحره أد ويدين بمرصد حات كل عبتي صعدون حدود كي منسوق قارني ليبيا هل كينا لا يقفتي منسوق قارني مركن أنا النية دبي يقوموا بتشرتها نواد بتكون بتباد بس واسكف اليوم وحن سوقيون أسكر حتى دور كان دتك وقام الشيك هنا يعني وما دهايو ليبيا لا يسقط ساسي ساسو iguma bijirta waxa soo dhanay qof niyad jabay maxad ka taqaanaan cidiyaan iska cunaan haye soo gaarnay ida Liibiyankii baa noo yimiday gaadhidii Liibiyanka u wareegnay sidoo kale waa nala waday ana markaa imka daqiiqadaan tirnay xataa dilay guura xuduudkii wad soo dhaaftay maba qancayaba askar unbu Ilaahay igu diray markaan arkay inaan sii socono maalin anagoo Liibiyankii gaadhidoodii saar barrun aaminay inaan markan badbaadayo waxaan idhiyaa markan xaaladdu waa sidii hadda imika waxaan saaranahay maalin dhan baan gaadhidii Liibiyanka saaranahay Suudaantiin iska tageen markii baan aaminay inaan soo badbaadayo markan xoogaha alif mabruuk markan la iwa qabanin Liibiya waan galay saxarihii markaan saa uga soo dhammaanay Liibiya gaadhidii baan ka degnay kuwa kale waaweyn baan nala saaray
اللي المجال نحمرينا هدي كون ير وانا الأركية دت كان على الأركية جوالدي ووينا بس كوري كورها بعنا لقى حرة سيدي توبي ما كان شوقي وان سعني وحنا لو وضع هذا مقافة